kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah warar kala duwan oo ka soo baxaya gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo lagu dilay Muqdisho. Saciidani oo 3 cod ka helay doorashadii ka dhacday magaalada Garowe. Sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya guddiga xalinta khilaafaadka oo soo saaray war culus. loolanka loogu jiro kursiga Hob eber 64 oo galay marxalad cusub. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. Aynu ku bilownay warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Kooxo hubeysan ayaa xalay degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Ibraahim Macow. Marxuumka ayaa lagu toogtay banaanka masjid uu ku soo dukaday salaadii cishaha sida ay dad goobjoogayaal ah ay sheegeen. Cabdiraxmaan Ibraahim Macow oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan u sharaxnaa mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee laga soo doorto gobolka Hiiraan. Marxuumka ayaa la soo shaqeeyay maxkamadihii Islaamiga ah ee markaa soo talinayay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu gudoomiye ka soo noqday gobolka Hiiraan. Marxuumka oo xalay la dilay ayaa la sheegay in dhawaan uu Muqdisho uu ku qabsaday munaasabad uu ku shaacinayay inuu yahay musharax u taagan ama u tartamaya mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Hiiraan. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay falal kala duwan oo isugu jira dil iyo waliba falal amniga lid ku ah, iyadoona ilaa haatan aysan jirin dadka falalkaasi geysanaya in gacanta lagu soo dhigay. Dhinaca kalena Saciidan ayaa la sheegayaa in 3 cod oo ka helay doorashadii ka dhacday magaalada Garowe. Doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka bilaabatay deegaanada dowlad goboleedka Puntland, waxaana la qabtay doorashada ilaa 5 kursi oo ka mid ah kuraasta xubnaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland oo ka mid ah musharaxiinta la filayo in ay isu soo taagaan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya, ayaa doorashadii ka dhacday Garowe waxa uu ka helay sida ilo madax bannaan ee xaqiijinaya ilaa 3 cod, iyada oo la doortay 3 qofood oo isaga aad ugu dhow. Labada kursi ee kale ee uusan helin Saciidani balse lagu doortay magaalada Garowe ayaa kala ah Hob 235 iyo Hob 200. Kursiga Hob 235 waxaa ku soo laabtay xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ah wasiirka kalluumeysiga xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya, halka kursiga Hob 200 uu ku soo laabtay xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh. Labada xildhibaan oo aan ku aragti ahayn Saciidani isla markaana ku aragti ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay dad badan isweydiinayaan sababta keentay in ay soo baxaan, maadaama doorashada socota ay tahay mid ay go'aan ka gaarayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka. Labadan kursi waxaa la sheegay inay ku dul hoogteen 2 nin oo waliba jilbo culus ah oo uusan wax ka diidi karin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sida siyaasiyiin badan ay qabaan. Kursiga Hob 200 ee laga leeyahay magaalada Garowe waxaa markaasi ku dhagay Islaan Ciise oo codsaday in kursigan mar kale loo dhaafo xildhibaanka ku fadhiyay oo ah xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh. Kursiga labaad ee Hob 235 oo laga leeyahay degmada Xudun ee gobolka Sool isna waxaa ku dhagay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo Saciidani u dhaafay go'aanka kuraasta kale. Kuraasta kale ee la doortay oo uu ka mid yahay kursiga Hob 166 waxaa ku soo baxay ninka lagu magacaabo Axmed Taajir, waxaana keensaday Saciid Cabdullaahi Dani oo rajeynayo inuu codkiisa helo, waxaana kursigan horay ugu fadhiyay xildhibaan Sadiiq Barfa. Kursiga Hob 249 waxaa ku tartamay 2 musharax oo kala ah Cabdullaahi Xasan Rooble oo helay 93 cod, waxaana la tartamay Maxamed Cabdirasaaq Ciise, waxaana ku soo baxay kursigaasi Cabdullaahi Xasan Rooble oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Puntland, waxaana kursigaas horay ugu fadhiyay Sharma Arke Saleebaan, wuxuuna ka mid yahay kuraasta uu ku tashanayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Kursiga shanaad ee lagu doortay magaalada Garowe waa Hob 196 oo ay ku tartameen Cabdi Ibraahim Warsame iyo waliba Abshir Cabdi Xuseen, waxaana Cabdi Ibraahim uu ku soo baxay doorashadaasi isagoo helay 90 cod, halka musharaxii la tartamayay oo ahaa Abshir Cabdi Xuseen uu helay 6 cod oo kaliya,
codadka xumaadayna waxa ay ahaayeen ilaa 2 cod. Kursigan waxa uu noqday midkii saddexaad ee uu helo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ah musharax la filayo in markaasi uu isu soo taago xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Dhanka kalena guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa waxa ay soo saareen war culus. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa sheegay inay ka go'an tahay hubinta iyo xaqiijinta odayaasha xulaya ergada hubinta iyo ergada musharaxiinta. War-saxaafadeed uu guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban soo saaray ayuu ugu baaqay guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada inay markaasi dhaqan geliyaan habraacyada lagu heshiiyey. Waa in musharaxiinta tartameysa guddiyada soo xulaya ergooyinka iyo weliba ergooyinka dooranaya xildhibaanka ay markaasi buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee dalka. War-saxaafadeedkan ka soo baxay ayaa waxaa xilligan la sheegayaa in uu ku soo aadayo iyadoo doorashooyinka xubnaha golaha shacabka haatan gudaha loo galay oo dhowaan heshiis Muqdisho ay ku gaareen xubnaha golaha wada-tashiga qaranka ay ku soo saareen muddada ah in 25 bishii soo aadan ee Febraayo la soo gabagabeeyay doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. War-saxaafadeedkan ayaa soo baxay xilli uu guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal uu ku sugan yahay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland, halkaasi oo lagu doortay 5 xildhibaan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo dooranayo deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa kal hore walaac badan laga muujinayay iyadoona la sheegay in boob xoogan uu ka jiray. Guddiga xalinta khilaafaadka ilaa 7 xubnood oo ka tirsanaa ayaa shaqo joojin waxaa ku sameeyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaana dhammaantoodba lagu eedeeyay in musuq iyo weliba in ay ka amar adeegeen hadallo loo jeediyay oo ahaa in hannaan wanaagsan ay doorashooyinka u maamulaan, balse haatan la rajeynayo guddiga cusub ama xubnaha cusub loo jeediyay talooyin ah in si hufan doorashooyinka ay u qabtaan. Dhanka kalena loolanka loogu jiro kursiga Hob Eber 64 ayaa galay marxalad cusub. Dagaal siyaasadeed, mid beeleed iyo weliba dacwad ayaa hareeyay kursiga Hob Eber 64 oo ah kursi ku asteysan qoonda haween, waxayna xaaladiisu gaartay inay markaasi soo dhex gasho dacwad oo mid ka mid ah musharaxiinta loogu yeero maxkamadda. Kursiga Hob Eber 64 oo ay leedahay beesha Absugo Waceesle waxaa horey ugu fadhisay Zahra Cumar Maalin, waxaana sanadkan ololaha loogu jiro uu ku bilowday in markaasi laga saaro qoondada haweenka. Qayb ahaan ayaa lagu guuleystay arrintaas iyadoo markaasi la kaashaday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo madaxweynaha mudxuleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dhacday in guddiga doorashada Galmudug uu ka saaray qoondadii haweenka sida ku cad qoraalkii guddiga doorashada Galmudug soo saaray 12 bishan. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.